بسم الله waxaan halkan u nimid shir loogu talagalay inay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ay ku wada hadlaan iyadoo ujeedadu ahayd shirkan hadda meeshan loo yimid waxa suuroodaba inuu shirkii sagaalaad yahay shirar fara badan oo ka horeeyana waa dhaceen oo ay dawladihii ka horeeyay dawladdan ay qaban qaabiyeen iyo wadamo saaxiib ah kan waxaa aad uga soo qayb galay dhinacyadii la rabay inay isu yimaadaan oo runtii miisaan buuxa ku yimid dhanka iyaga waxaa yimid madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaa yimid ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaa yimid guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal miisaan aad u weyneen ku nimid ayaguna waxay ku yimaadeen intoo kale madaxweyne muuse biixi ra-iisul baarlamaankii wasiiro badan oo ka tirsan kabinetka somaliland regionkana runtii aad iyo aad ay usoo cusleeyeen mahaday ka gaarto madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo arrinkan soo qaban qaabiyey dad badan uu ku soo casumay oo ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha ethoobiya doctor abiy axmed waxaa joogay oo mas-uuliyiin waaweyne ka joogeen igad dowladda maraykanka midowda yurub shirku marka guud ahaan wuxuu ahaa shir aad iyo aad looga soo qayb galay oo lasoo cusleeyey wafdigii reer somaliland waa fadhiisanay 4 maalmood ayaan ka hadlaynay arrimo kala duwan aad iyo aadna waa u kala boganay waxaan ka bilownay inaan ka hadalno ajenda aan u garanaynay inaan u baahannahay si wada hadalku ugu dhaco jawi kalsooni leh markii aan ka gudubnayna kalsooni dhisidii waxaan u gudubnay arrimihii la rabay in laga hadlo oo labada wafdi ay ka hadlaan waxaan ku bilownay inaan dhegaysanno waxyaabo tabashooyina oo wafdiga somaliland ay soo gudbiyeen oo huseynayey kaalmada caalamiga oo waddanka la siiyo iyo arrimo kaloo badan arrinkan maamulka hawada soomaaliya qodobo sidaasoo ay tabanayeen in horena looga hadlay waxqabadkoodiina ama wax ka dhiman yihiin amaba uu wada dhiman yahay arrimahaas waa isla meel dhignay si fiicanaan isla meel dhignay laakiin arrinka masiiriga runtaahi wuxuu ahaa in soomaaliya 1960kii markii la sameeyey qaybtii soomaaliyeed oo ingiriiska xorriyadda ka qaadatay iyo qaybtii koonfureed oo talyaaniga xorriyadda ka qaadatay ay wax isku darsadeen 30 sana la wada joogay taariikh ahaanna hadda marka arrimahan soomaaliya iyo somaliland laga hadlaayo waxaa la soo qaadaa tabashooyin muddo dheera oo mararka qaarkood siyaasiyiinta qaarkoodba ay gaarsiiyaan waktiga xorriyadda ama wakti ku dhow arrimaha 30 sano oo dambe taagnaa oo gooni isu taagga somaliland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladihii ka horreeyo ama dowlado rasmiya ahaa ama ku meel gaar ahaa oo danaynayey in lagala hadlo bal wixii tabashooyina in la arko wixii hore nooga xumaaday in la arko dadkani kalama marmay aan isku soo laabanno iyadoo mabda u yahay inaan wada joogno oon hagaajinno waxyaabaha ay tabanayaan ayagu isku soo noqodkaasi uu noo yeelo awood dadnimo iyo mid dhaqaale labadaba intaas annagoo danaynayna waxaan ka hadalnay in arrimahan iyaga ah oo laga hadlay ama tabashooyinka ha ahaadaan ama hore in loo socdo ha ahaadaan in loo sameeyo guddiyo 3 guddi oo guddi walba uu la xaalayo mowduuc gaara guddi walbaana wuxuu isugu jiraa xubno ka socda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo xubno ka socda somaliland guddiyadaas farsamo waxay isu imaanayaan bisha aan dhaho 2 usbuuc gudahood
guddiga kor ka ogaanaya oo howlahooda hagaaya oo ah guddi heer wasiir ah iyaguna 45 cisho kadib ayay la soo howlgeli doonaan markay muddo shaqeeyaan waxaasoo dhanina waxay ka dhici doonaan Djibouti sida haddaba shirku uga dhacay waxaan rajaynaynaa haddii alla yidhaahdo in ilaahay ummadda Soomaaliyeed isu carfiyo waxaan rabaa inaan aad iyo aad hoosta uga calaameeyo dadkii halkan isugu yimid ee labada dhinac ahaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ka socday runtii jawi bisayl iyo isu nuglaan iyo isu garaabid iyo fiirin mustaqbalka in wixii ummadda Soomaaliyeed meelay joogaan badan u ah in laga wada hadlo meesha ugu fiicanna la dhigo intaas waxaan ku dari lahaa oo aan jeclaan lahaa inaan ku gabagabeeyo aad iyo aad waxaan mar kale ugu mahad celin lahaa madaxweynaha dowladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyadoo dowladda Djibouti aan ognahay sanadkii koowaad ee 30 sano ee dagaalka sokeeye socday sanadkiisii koowaad inay nala bilaabeen ilaa ay haddana gacanta ku hayaan si ay u xaqiijiyaan ummadda Soomaaliyeed dagaalka sokeeye iyo kala go'a iyo waxa ku dhacay inay la xaliyaan isu geeyaan xaqiijiyaan walaalo meel taagan oo iyagana hiil siin kara ayagana hiil uga baahan inay noqdaan madaxweyne Ismaaciil iyo intii ka soo qayb gashay taageertay kala ku dartay ee saaxiibada Soomaaliyeed ee regionka iyo caalamka ah aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa wabillahi tawfiiq